السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديوغان waa video ahmiyadiisa iyo muhiimadiisa wata waxaana uu ku saabsan yahay haddii aad la kulanto ciidamada dadka soo galootiga qabta ee tarxiila ee ICE adiga oo dhalasho haysta oo citizen ah oo ama ha kugu soo qaldamaan oo qof kale ha ku moodaan ama si kale aad u kulantaan ama adiga targetka iyo yoolka aad ahaatide haddii aad la kulanto wixii aad ku oran lahayd sidii aad ku badbaadi lahayd ama sida dhaqso ay kugu sii deyn lahaayeen waxa marka hore aan rabaa insha Allah taala inaan idin la wadaago video ay soo saartay hay'adda gobolka booliiska gobolka ee stateka Colorado State Patrol videogan ayaa waxa uu officerka ama afhayeenka ciidamada state patrolka uu ku sharaxaya haddii ICE aad la kulanto adoo citizen ah wixii aad ku oran lahayd iyo sidii aad uga badbaadi lahayd marka hore bal askariga ila fiirso insha Allah taala oo isagu noo sharaxa wixii aad ku oran lahayd nimankaas. If ICE detains you but you're a US citizen, here's exactly what to say and do so you get released fast. Use one sentence calmly over and over. I am a US citizen. I want to speak to a lawyer. Add this. I do not consent to any questioning or signatures. Am I free to leave? Don't argue, don't explain, just repeat that line. Then say, please call a supervisor. You've detained a US citizen. Supervisors are trained to correct mistaken detentions quickly. Okay, sida halka idinka muuqata. Trooperka ayaa isagu waxa uu sharaxay hadallada aad ku oranaysid iyo inta aadan hadalka uga badinaynin. Qodobka koowaad wuxuu sheegay waxa loogu soo celceliyaa I am a US citizen. Waxaan ahay muwaadin Mareykanka dhalasho ka haysta. Kow qodobka labaad oo aad oranayso haddii su'aalo ku weydiiyaan I am not going to answer any questions wax su'aalo oo aan ka jawaabayo ma jirto absolutely. Tan saddexaadna waxa waaye I need a lawyer baan u baahanahay. Tan afaraadna waxa waaye am I free to go marka free ma ahay inaan iska tago. afartaa sentence baa loogu soo celceliyaa buu yiri ay ammaan ku siiyaan haddii aad wax identification wadato passport kaarkaaga passportkaaga caadiga ah wax ku cadeyn kara in qofka aad tahay aad wadato waa tusi kartaa buu yiri officerka oo iyaga waa la wadaagi kartaa laakiin haddii aadan waxba haysan intaas kaliya ugu soo celceli aniga citizen baan ahay wax su'aalan ka jawaabay ma leh lawyer baan u baahanahay iyo free ma ahay in aan iska tago saddexda afartaas eray wax ka badan ha u dhaafin waxa kale oo uu sheegay wax warqada oo ay wataan oo u saxiixdo iyana aysan jirin absolutely no warqad oo u saxiixdo aysan jirin because warqada waxa laga yaabaa inay ku qoran tahay wax aadan iska akhrinin aadna iska ogeyn oo waxa laga yaabaa in dhibaato ay ku keento so warqadna ha u saxiixin su'aal ay leeyihiin ka jawaabin lawyer baan u baahanahay dheh citizen baan ahay dheh free ma ahay inaan iska tago wax su'aalan ka jawaabayana ma laha inta hadda ugu soo celcelisoo dhahay waxa suurtagal ah inay iska kaasii daayaan iyaga markaas identification-kaaga ay raadsadaan haddii hataa waxba aadan wadanin intaa kaliya ugu soo celceli hadday ku xiraan hataa waxa ay noqonaysaa easy in lagu soo sii daayo oo markay ku soo xaqiijiyaan qofka aad tahay iyo dalkana dhalasho ka haysato markay arrinkaas soo xaqiijiyaan ku soo sii daynayaan buu yiri laakiin absolutely wax su'aalana ha ka jawaabin absolutely wax warqadana ha isku saxiixin gabi ahaanba intaas kaliya adiga ku dadaal buu yiri officerka oo afhayeenka u ah Colorado State Patrolka inta ayaan rabaa inaan idin la wadaago insha Allah taala wixii kale oo warar soo kordha isla wadaagi doonaa haddii Ilaahay ma wasalaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh videoga sii share garee fogeeya oo daaqadaha uga tuura buu dhihi jiray ninkii oran jiray Cali Samatar